بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waa Ogbaad Healthy Cooking. kusoo dhawaada asxaabta Ogbaad Healthy Cooking. maanta waxaan ka sheekeynaynaa mooskan cagaaran baan ka sheekeynaynaa iyo waxa lagu yiraahdaa afka Soomaaliga muhoga bay dhahaan. afkeenana waa muxog marka muxog weeye bahalka kan Soomaali qolada tan waxay dhahaan muhoga bay dhahaan. Englishkana waa kasaafo weeye. marka waa cunooyin maxaan ku raday caafimaad leh oo aad caafimaad badan marka waxaan rabnaa in aan ka sheekeyno bahasha tan dalalka laga cuno waxa kamid ah Afrikaanka oo dhowr fiican bay cunaan qolooyinkaas Afrikaanka sida Nigeria iyo maxaan ku raday iyo Ghana iyo aad bay u cunaan dadkaas oo dhan iyo Uganda iyo qaabo badan ay u sameystaan oo tiro badan bay u sameystaan marka waxaan rabnaa bal maanta inaan wax yar cunno ka sameeyno marka intaanaan u gudagelin asxaabta Ogbaad please waxaan ka codsanaynaa inaad noo subscribe gareysaan oo noo like iyo waxaas noo saartaan dadkana aad noogu dirdirtaan maadaama maanta fiidiyoyo badan ay jiraan oo Soomaalida ay leedahay oo wax badan laga sheego wada manaafacaad leh kulligood manaafacaad bay leeyihiin laakiin waxaan rabnaa wax yar inaan ka bedelno maadaama aan caafimaadka wax ka garanayno insha Allah hadii la ilmo wax yar aan rabnaa inaan ka bedelno bahashan faa'iidooyin fara badan bay leedahay kasaafada tan hadday leedahay faa'iidooyinka maxaa kamid ah dadka horta tabarta daran oo nafaqada daran horta way waxbay ka tartaa laba cudur oo la dhaho labadaba gaajada iyo waxaas iyo cudurrada iyo abaaraha ku dhasho oo la yiraahdo kwashiorkor iyo marasmus la dhaho aad bay uga hortagtaa hadii aad uga hortagto kwashiorkor iyo marasmus labada waxa weeyaan waa laba cudur oo xun kwashiorkor waa qofku buurinaya waa qof buurin laakiin korkiisa biyaha ku jira sidii caga bararkii waagii la sheegi jiray oo kale qofku noqonaya markuu noqdana inuu qofku waxa loo qaba uu buuran yahay mana buura waxa ka buuran waa biyo iyo jirkiisa iyo nafaqada ka dhamaatay midna waa marasmus oo qofku waxa ku dhigay dubka iyo haraga ku dhigay lafihii iyo waxa isku dhigay iyo haraga wax kale u dhaxeeya ma jiraan way ka hortagtaa oo maaragtay dadkaas u fiican tahay waxa kale oo kamid ah calcium far badan baa ku jirta oo dadka lafa xanuunka qaba ama lafaha ka eed sheeganaya waxa fiicnaan lahayd in iyaguna ay cunaan baa fiicnaan lahayd oo calcium badan maadaama ay ku jirto gooryaanada calooshana way ka hortagtaa aad bay gooryaanada caloosha uga hortagtaa waxa kale oo kamid ah appetite-ka inay furto dumarka waxay kordhisaa uurka bahasha uurka kordhisaa hadda dalalkan cuna sida Uganda oo kale iyo Nigeria oo kale mataanay dhalaan mataanaha ku badan waxa walba Ilaahay waa bixiyaa laakiin maadada la yiraahdo folate-ka oo dumarka u badiso ukumaha iyo waxaas oo increase gareysa iyo hormoonada baa ku badan maadadaas marka boqolkiiba waxaba ku jirtaa bal halkii koob oo tan ah halkii koob oo kasaafadana oo meel lagu shubay boqolkiiba 15 baa ku jirta oo folate-kaas ah marka ilmaha way kordhisaa fiiriya Ugandisku aad bay u mataana badan yihiin sida Algeria oo kale iyo 5 iyo wixii ka badan bay dhalaan Ilaahay baa adigu qadara laakiin way kordhisaayo maadooyinkaas ilmaha iyo waxaas Ilaahay u tala galay bay kor u qaadaa waxa kale oo kamid ah in laga helo maxaan ku raday indhaha u fiican tahay qandhada iyo madax xanuunka labadaba way daaweysaa iyadana waxa laga wajiga la marsadaa waxay ka hortagtaa madmadowga iyo qarqaraxa jirka iyo jirka maxaan ku raday iyaguna dildilaaca waxaas oo dhan bay ka hortagtaa qofku wajiga si caadi u marsan intuu in yar malab ku darsado marsanaya iyo timaha qof ka soo daata iyo timaha inay baxaanba aad bay mas'uul uga tahay oo maaragtay way daaweysaa maadooyinka ma kala qaadayna maanta vitamin iyo maxaan ku raday iyo mineral iyo protein kulli way ku jiraan waxaas oo dhan way ku jiraan marka asxaabta Ogbaad noo subscribe iyo like noo saar insha Allah hadii la idmo si ay dadka maxaan ku raday faa'iido wada gaarto oo loo kala faa'iideysto idinkuba cilmi baad haysaan marka waan fiiqaya markaan fiiqo insha Allah iyadii mooska kala tarkiisu isaguna yuusan idin dhuman waxyaalo fara badan baa laga helaa mooska waa isku mid qoloftiisa iyo gudihiisa waxa laga helo qudaarta kale isagana laga helaa mooska cagaaran isaguna fiitamiino gaar ah fara badan buu leeyahay oo uu la wadaago qudaarta kale iyo kuwa gaar ah isagoo leeyahay marka maanta waxaan ka sameyn lahayn baan bal fiirinayna insha Allah hadii la hayno waan soo fiiqana waana jarjaraynaa hadii Allah idmo waan soo jarjaray intaasaan ka soo jarjaray marka qiyaastii adii labadeeda saac markii la isugu qabto weeye mugood kasaafada aan soo jarjartay ama muhoga aan soo jarjartay xabada mooskana waa ku dhex shiidayaa xabada mooskana koobka qudaarta lagu shiido baan ku shubayaa marka koobka qudaarta aan ku shubana koob halfkiisa biyo baan ku darayaa
ما بدنا وكوب هاف كيسو بيا أو كدريا كوب كهاف بيا إذا كسو شيء مركز دي لها إدمه وما باهنا بيها القبضية وكاسا مركي كوب بيا هاف كيس أنا كشوي sidaasay noqotay inay jilic noqoto lama rabo in adeeg noqoto lama rabo baaquliga marka wax yar dufanaan baaquliga soo mariyay si aysan iiga qabsan baaquligaas marka waxaan rabaa inaan biyo kulul aan ku rido oo ii karkaraya oo aan kusoo shubtay bahalka oo maqli xoogaa weyn baan kusoo shubtay ama bahalka kan oo lagu dubta malawaxa xoogaa weyn baan ku dhex ridayaa dabool baan saarayaa uumitaan ku karinayaa marka qaabo uumitaan baan ku karinayaa intaasaan ku filan just ama microwave haddii haysato microwave-ka gelinaysaa halkan markaan kusoo shubay kaasafadii iyo mooskii saan bay ii noqdeen marka sidaan bay ii noqdeen biyaan dabka la saara kanaan biyo kusoo shubay markaan biyo kusoo shubay baaquligana waa ku dhex riday baaquliga ma jeedaan soo ma jeedaan sidaas ugu dhex riday biyihiina waa karkarayaan hadda marka saan isugu soo dhegdhegeen dabkan hadda ku celinayaa xoogaa marka dabkan ku celinayaa ilaa aan ka helo wax isaga ki dhegan oo isaga dhanba isku dhegan buuriskaas bes baa ku filan buuriska kaliya ku filan الله kuuskaasay noqotay oo saas uga soo fuqaystay dhinac kasta marka waxaan sameynaynaa waxaan kusoo ridaynaa saxan baan kusoo ridaynaa marka insha allah kasaafadii markaan karsanay oo soo umitayna karin maahayna waa tanaasaanay noqotay yaa ugaali yaqaana ugaaliyaa yaqaana waa inay saa u adkaato saasay u adkaanaysaa saasay noqotay kasaafadii iyo mooska markaan karinay waa taasaa waa umitayna biyo karkariya baan ku ridnay waa inay saa isu haysato sida ogaalid oo kale waa inay saa isu qabsato waa kaasa marka halkan maanta waxa ii yaala salar baan rabaa inaan ku darsado malab halkan ii yaala malabka marka salar baan rabaa inaan ku samaysto insha Allah hadii Ilaahay nagu ila fiiriyo meesha tan khal baa ii yaala salar dressing baan rabaa inaan samayno oo ka fiican kan oo maaragtay oo meelaha lagu gado midkan waa mid oo original ah organic hadii aad samaysato guriga ku samayso halka laba qaadadana buuxda oo malaba iigu jirta hal qaado oo malaba halkan waa ku darsanaya labadaas qaada bis marka halkan waxa ii taala avocado bisil baa ii taala avocado bisil baa halkan ii taala avocadadana marka waxa rabaa inaan ku daro avocado bisil weeye iyaduna marka avocadada saa u jilicsan oo maaragtay aadka u jilicsan waxaa lagu darayaa malabka iyo halka aan meesha aan gashaday markaan ku darana waxay noo sameynaysaa dhacaan aad u macaan oo salarka lagu cuni karo way sameynaysaa markaas kaasaa la yiraahdaa celery dressing marka qolyahaas adigu waxa ula baxay oo dee kambaniyadaas ula baxday oo gaalada iyo waxaa soo samaysatay dee inaguna af Soomaali u samaysano weeye marka dhacaanka salarka lagu daro bay noqonaysaa insha Allah hadii la idmo dhacaanka salarka lagu daro waa aad macaan organic oo aad guriga aad ku samaysanaysid weeye caagad baad ku shuban kartaa talaagada gashanaysaa booska hadda liint booska khalka waxa gashan kartaa liin baa gashan kartaa intaana marka isdhex gelinaya marka soo dhex geliya insha Allah baa isla fiirinayna hadii alla malabkii iyo khalkii iyo avocadada saan u soo galnay isku soo burburinay saan baan ka soo dhignay marka saan ka soo dhignay iyaga waxa kaaga heltisan waxyaalaha kan la dhaho qudaarta lagu dardaro ay laga soo gado supermarketada iyo meelahaas saliid aan aqoon bay ku shubeen wax fariisanaya laakiin tan hadda waa healthy qofka intaan qof ay dhibayso hadda male qof gaas qaba iyo qof dhiikar qaba iyo qof maxaan ku raada xanuunsan iyo calosh laga hayo iyo ma dhibayso halka kana waa marka waa qudaar aan soo jarjaray qudaarta aan soo jarjaray oo dhan weeye marka saan baa marka aan ka dhigayaa insha Allah hadii la idmo marka waa kaasa salar dressing hadaan maqasho waa kaasa salar dhar loo gelinayo kaasa salar hadaa rabtid marayihiisi u geli waa kuwaasaya salarku nooc raba ha noqdo laakiin hadaa saan tiraadid malaynayo kaligiisa cunno noqon kara dadka hadda iscaateynayo kale intaan oo maxaan ku rahdaa saxan yara ah iyo hal chicken qada way u noqon kartaa maalin kasta intaas qada u noqon kartaa maxaa marka kaa maqan waa kaasay wax yar oo waxaan ku daraynaa olive taas wax yar kaga daraynaa
meesha kuwa kale saliida kale lagu daro oliiftaasaan wax yar kaga daraynaa haddii ilahay aan badnayn adi qaado ma dhammaan insha allah. qofkii raba inuusan wax dufan oo jirkiisa taabsiinoo markaas raba inuu iska jiro kolestaroolka waxaas miis kuba darsan baa iska daayo, laakiin hadda oliifta waxba ma dhimayso. jirku wuu u baahan yahay kolestarool xun iyo mid fiican baa jira, bad kolestarool iyo good kolestarool baa kala jira. marka kolestaroolka marka fiican jirku waa u baahan yahay, jirka kolestarool la-aan ma ahaan karo, laakiin mid xun baa jira. kan xun markuu hay noqdo baa adduunka ugu daran, waxaana saliidaha xunxun baa cirka geeya. qofka bini aadanka jirkiisa maalintii saliid buu u baahan yahay, yar buu u baahan yahay daily wax yar adiga 5 ml iyo inta hadda ma xasuusto. waa kaasa masha Allah tabaraka. hadda halkan waxaa noo yaala hasheeni baa noo taala. ugaali baa maanta dhan leh, ugaali maahe waxa weeyaan ugaali ma ahee waa kasaafadii, waa lunch diet. qofka intaa hadda cuno waa lunch diet, ma baahna wax kale. halka kana waxaa noo yaala qudaaro aan soo hagaajiyey oo chicken aan ku daray. iyagana waa qudaaro aan chicken ku daray aan soo habeeyey. iyagana intaas waa chicken iyo qudaar aan isku soo dhandhanaaniyey weeye, saas aan u sameeyey. waxaa la rabaa qof iscaateyn lahaa marka baa la rabaa insha allah. waa kaasa marka asxaabta gubaad marka idiin sheegayay oo dressing saladka aan noo sameynayay. dressing saladka waa healthy, soo ma aragtaan waa mid oo healthy ah. waxaan ka samaysana waa ujeedeen waa avocado iyo khalkaas iyo waxyaalahaas organic ah baan ka samaysana loo jeedo oo qof walba camin karo. marka waa kana salad dressing haddaan qashaan waa kana asxaabta gubaad soo ma jeedaan Italian dressing salad. marka kan ma ujeedaan inta saliid ka sarreysa wuu kiimikaysan yahay. waxaa lagu gadaa supermarketada lagu gadaa. hadda bal waxa saliid ka sarreysa fiiriyo dushiisa. waxaa rab only inaad idin tusasay u kala caafimaad badan yihiin, adaan ku samaysan kara gurigaaga. kanoo kale hadda tusaale ahaanba usoo qaatay anagu hadda ma isticmaalayno. kanaad waxaad gashan kartaa talaagadaadaad gashan kartaa waxyaalaha la isku dardaro, ama intaad khal qaadatid oo avocado ku dartid oo isku ruxdid iyo cusbo yara iyo liin talaagada gasho oo maalin walba ku darso xoogaa. laakiin kuwa kan waxaa lagu soo daro kiimiko. hadda haddii la furo waxaa kasoo uraya khamiir. haddaa furtid khamiir baa kasoo uraya. waxaa is leedahay maxaa meesha ka uraya? walaahi khamiir baa ka uraya. waana wada saliid. marka insha allah samaysta sidana guriga ugu samaysta haddii ilaahay idmo. dressing salad kanaaba ka wanaagsan kuwa kale. asalaamu calaykum waraxmatullahi.